هنجتي أن هذا نوع حين أيو وادتك أي نمايو حدد نمايو طلبين نهايو وحاصير بعدين غير نفس عليه حتى دتكني أنا واحد ما دتكن برهوري مسك عقل جود برهوري يستاجي برهوري دتكن عقل جود يستاجي قابك وحسوا عليه حتى قاب دتك اللي يسوع عليه معه سيد عيالك نعنع على وسط صبي موقت عرفت مركز المقراص هاي اللي يسوع عليه أنا ركالي نعنع ما كسير يا صلق والله قبتها موقت أنت لا نعنع والله كسير يا دتك قارب هو يمكن قارب بينتك وقبت عرفت هو يكالي نعنع ما كسير يا قوانيسه أما هو يسيحنيسا أما مقراص ميل بيجينيسا وحالك يسدد وين ولا السياسيين بانحي أو دول بانتي سيد عيالك هو رقمية أي بان دي هاي وصار نقطة يقولي ولا دين يتكلم الدمية ولا دين بالسيا تولني ما ضحى ياقو دبعت ما شرتو إنك عايز كترة إنك عايز كترة إيوه سجال قفك والله حيجني يا با يا قفك مركب وحده دريمة يا با مقراص إنسكيورتي دريمة قفك هو اللي يقول لك دقيقة هالكاس الله فرسنا هالكاس الله فرسنا قفك طلبين حي صنقوا أي بان قفكي وصار إله ماشي يا ورمورة يا كاسرة مورة قفكم مورو كتير موت أبتني مع اللوجو صام مارسنا يا أي نما اللوجو صام مارسنا يا مدرس كورنا يا أو بان ما يروح البانت أو وحمد المغلي مال هذي لها ما شرتني البانت البانت إنك نرى الشيء بصاص يتفق كلا ولا سعبني ورديس ركبة داوني لها ورديس أنا ورديس هذا البانت إنك نرى الشيء معنا عقلية ذاتك مركز أول هذا شان قفك وكوار كوينا كسر رينين مرخان سنتايود وحاجة ويهيبة قفك خيالي عقلي أتوقع بسنة سبعة قفك وين وحكاية حديان قفك وين ضوء قراتها إنه بالتشنكره لما كان بالبهانتي موري قالينو وحيصير وروحان يتكفوا تشيبي سنان والنسيد دايا هل كان بلقون دقيقة هذا كسر وش دقيقة دول على هسته شوك هتجي نمك هو يابين بقى ورماشن قرات وردي قوادي بقى حتى قوادي بقى مقراس اسكو عايز يسوي عيان تيدي قبلك هذه وحو كل انك ان لا هيستاغ مالينيا وايو waa laga soo boorday kaarka markuu isku shaarka lagu dhigay macawsta shaab kaba qofka ibn aadanki wuxuu dareemayaa in qof la qabsanayo kala asaas u noqonay ila qofka ma garaaza ibn aadanka waa xurriyadiisa siisa soo fikriyo waa u diisa wana tirada waxa adiga go'aankaas kale looma ogal waxa la go'aanka ma qaadan kartid garaajama waa la xilay walaalkii baa la keenayo walaalkii baa markaa lagu bedelayaa lagu leeyahay walaalkii maxaa ninkan kan laftiisa waan weydiiyay waxa ay gudaan dhulbaanta waa nin irbada oo cilaaj baa u socda waa cilaaj baa leeyahay waa nin waanba kan lagu bedelay Soomaaliya habeen ba meel la geenay leeyahay wala maxsuumay garaajama ali baa lagu bedelay markaa kaamiya kaasa lagu bedelay oo hargeysu fadhno fadhiyay markaa garaadka yaa sameeyay fardhaqanka iyo saldanadaha iyo garaadada iyo waxa lama taataabto wax la bedeli karo waxas ma cid la bedeli karta garaadada xataa dhulbahantan bedeli karin garaadkaas gudda saddex sodonka uu magaranayay cid bedeli karta ma jirto qofka ila wala bedelay qof mental oo waalan weyn isagaaba waalan is handicap your handicap weyn garaad baan bedelayaa oo garaad hargeysa joogo Mareykanka ka yimid dawooyin u socdaan baan ku bedelaya oo xaflad baa u qabanaysa suma macnaha lacagta waa la iska daadaadinaya sharaabka iska cabba wala bedelay wacankaas uu huwa قايد ماشي مالي Soomaaliya soo taaman jirin ba marka waxun baa la fadhiyaa in magacan dadka lagu cuno lagu baadho wadanka muuse lacagta ku rursado Soomaaliland waxa weeye in i'tiraaf kale sheegi jirayna good deer buu ku dhacay ya why the Wales putting Somaliland recognition at one air and out of the other ay Sweden dadka qaar ruba joogti maxaa yaani i'tiraafki Somaliland dhigna looga maqlay takalna lagu sii deynay dadku way yaabay بحال يوح سمايان بقرنلي ما قرأت مركا موسى وحوي وحن ذي شيء قلب كان مقرن صحيح أنت أقصد وجينا حوي مقالة هرجيسة اللي موجود تشوفيه مقالة هرجيسة خير باس كله خير كصدرات دا باس كله مقالة هرجيسة أنا هروان وش شيء وحن لا خير كتولك وحن شيء مقالة دي إنك عنك قبطة محاول شلون يصير والمقالة إذا كاس كله magaaladii nibaad dad ku dul sheeganaya meeshana waa soo fadhida
magaaladiinni baa la isku dul sheeganayaa saa dad lagu xirxirayaa waxa walba laga sameeyay go back to your home qof walba waa inuu gurigiisa ku noqdaa meeshan annaga iska leh hargeysa annaga iska leh la naqbala minha aqla wa sharca ma joogaysan nobody meesha joogaya ma jirto qof walba kulli shay yarjic ila asli meeshan ma fadhiisan aniga waxaan talka u sheegayaa gacan biro waa inay ku qabataan magaalada wax dawladda meesha Soomaaliland la yiraahdo wax nidaam meesha ka shaqeynaya ma jirto nin walba tuuladiisa ha qabto waayo Soomaaliland waxa weeye aqoonsigeedii iyo xasuuqii ku dhacay iyo wixii oo dhan waa la baabiyay wax walba waa la baabiyay wax walba xataa hay'adaha dawliga ma jiraan waad maqlaysaa maanta in xisbiyadii mucaaradka qaar ugu leeyay markay tageen magarasa lixdaata ka jun Soomaaliland ma dhigaysanin maxay dumarkii safka ku jiray lahayd xisbiga wadani baa wuxuu tagay xaafadda lixdaata ka jun magaalada Hargeysa hadda dadkan laga soo dejin Hargeysa dadkan inay martay daran yihiin xisbiga mucaaradka ayaa wuxuu yiri magarasa soo kormeer bal si doorashada u socotay kaar qabintu waxa lagu yiri ma taqaana meesha waxay idin yaalaan wadanina dhaafa yahu dumar baba caayib dumarkii safka ku jiray baa caayib waxay idin yaalaan macnaha aqliyada dumarkaas ay ku hadlayaan maaha aqligooda maaha waa aqli loo soo dhiibo leeydi laga shaqeeyay xalayto leeydi marka meesha ay nimankaas yimaadaan saa ku dhaha wala shidi gaadhay degdeg bay uga baxay si bahdilan ba kabarda loogu dul ma fahamt marka waxa leeyahay wax doorasho iyo wax nidaam meesha ka jiraana nin walo de magarasa xisbi wato waxa leeyahay nin xisbigaaga meeshaadi la tag xaafadaadi la tag waxa weeye meesha waa lagu kala baxay anuna Hargeysan calan ka taaganaya qof walba waan ka saaraya wallahi billahi taala inay ii fadhiyeen ba wallahi by force baad ka saaray qof walba meeshiisa qabto waayo nidaamkii dawladda wixii la wada dhistay wixii la wada lahaa 1991 wixii lagu heshiiyay waa laga baxay bari hore laga baxay nin walba meeshuu ka yimid uu ku noqonay soo ma garan nin walba meeshuu lahaa buu haray ma fahad ciduu marti uga noqonaya madaxtooye iyo waxaas ma jireen madaxtooyada xeradii geelay ahayd xeradii geela ayaa lagu xareynay geel baa nugu xariislaan jiray madaxtooyada markii dambana madaxtooyada Morgan baa dhisay imikana xere geel baan ka dhigaynaa laga bax meesha nin walba deegaankiisa qabto uu yaqaanaa Hargeysa ku deegaan ku noqon maysid inaad meelaha ka qalqayso tira deegaan Hargeysa ahay iyo guri aan dhisto ma guri ku noqon maysid deegaan dhulka ma tuurtaad ku siisatay hooyada waa dhulka iskale asadka miyad landlord miyaad dhulka miyaad iska leedahay fooq baan ka dhistay fooqaaga gooso waxaaga iibso waan ku iibso cidda ka iibsanaysaa uma garanayno labanka iyo sibirka bar raadado meesha lama joogay waan ka saaray magaalada Hargeysa dadkii lahaaba jooga ayaana ku haray cidii la degnay Soomaal garan waxa weeye hoobiya la isku riday ma xabada daba la iska gelinay meesha ma system ka jira meesha system kama jiro arkaysa waxa weeye wax walba la abuse garay gudoomiyahan baarlamaanka la waday faratoon la wadana waxaan u sheegayaa waxba faratoon oo dadkiisi deyriyeen oo magaranayay isaga horta waaba damiirkiisa aanu ma garanay faratoon anigu waxaan u aqaanaa inaan damiir lahayn oo magaranaysa xataa Cabdirasaaq markii uu ahaa mucaaradka iyo markii la dooranayay waxaan nin xiniyaacado hadalkiisu magaranayay magaranayay wax dhacsaduha markuu meesha joogay iyo markuu maqayib uu dhacsan jiray wax ma garat laakiin faratoon Muuse wuxuu doono Muuse wuxuu alli wuxuu doono soo doono ka yeelaya Muuse laakiin Cabdirasaaq Muuse kuma soo dhacayn waa garanaysa ya laakiin faratoon waa ilmayar oo magaranayay kolba siba odayga loo walqinayo kolba meel baa la geeyay waxba loo sheegay gudoomiyaha laga dhigay gudoomiye ma ka dhigaan gudoomiye bari ma ka dhigaan oo tii laga soo rojeestay mucaaradka oo dhan magaranayay Cabsaaq doorteen mucaaradka bariga doorta Cabsaaq ninkan waxa weeye waa garanaysan inta codo hela waa garanaysan ma fahant waxaana sharafta ka qaaday inuu soo yiri waqti baan ku bixinaynaa xildhibaanadan iibsanaynaa imika waxa la rabaa imika lacag ba la soo saaray baan maqlay waxa la rabaa xildhibaanadii la iibsado laakiin xildhibaanadu markan nimankan meesha jooga dhalinyaro badan yihiin niman magaranayay faratoon iyo waxa dooranaya ma waa dadkan dad la iibsan kara ma ayada meesha joogta baarlamaanka waanay dareemeen in dalkii Soomaaliland uu hog dheer ku dhacay booran hadimaha qodin ku dhici doontana mooyaan yani Soomaaliland waxay noqotay wax rabish oo kale noqotay macnaha wax meel ali meel soctaan jirin bay noqotay
wax walba xiriir walba waa la gooyay bala xiriirka arrimaha dibadda waa la gooyay waxa kaga awood badatay khaatumo igad hadday igad noqoto waa laga awood batay African Union waa laga awood batay waa 10 years bay dawladdaas jirtaa lagu leeyahay arrimihii dibadda maanta xoog iyo xabad la isku midino xabadda waxa ka daran qalinka hadara wuxuu lahaa qalinka wax suureeya kugu sima halka doonto saaxiib kal furan weey ma garad macnaha qalinka ayaa magarasa qalin iyo maskax baa imka lagu shaqeeyaa go'aad cadaan qasab ku qabsanaya bay qaar ka leeyahay meelaha TikTok iyo meelaha Facebook inta soo galaan dad bay ilaahay waxay aaminsan meeshan by force baa lagu qabsanaya by power haye by power yaa ku qabsanaya vibration ma haysatid shan qof baa meesha oo dhulbahantaa baa jooga shantan qofna waa missionary waa dad calooshooda u shaqaysta weey cid ay matalaan ma jirto hadduu maca Cabdishaaq quriimka joogi lahaa waxa la oran lahaa reerka qayb accountable qayb baa taageersan baa oran lahaa faratoon yaa taageersan bal gabadha faratoon taageersan xataa markii hore uu tartamay yaa taageersanaa waxa la eegaa markii hore taageeradooda macal kala eegaa markii hore dad dhulbahantay Cabdishaaq way wateen laakiin faratoon wuxuu ka ag yahay كمثل الميت بوكي قف دنتي بوكي we are dreaming in a daylight maalin cad baan riyoonaynaa hadaba riyo loo baahna riyadu way soo dhamaatay iyo qaranka waxa soo dhamaaday an nafsu nafis bi maraysa meesh xaaladu ugu dambeysay stage ugu dambeysay marayna maadaama ay soo marayna dawladnimadii la biskiray wax walba la baabiyay systemkii Somaliland bari hore laga baxay qof walba wuxuu doon sharciga gacanta ku qaatay magaalada Hargeysa annaga iskale oo cida garaad degan waan ka raraynaa cid walba tuuladaada qabo iyo meesha ka timi ceebna ma maadaama aanay dawlad meesha ka jiro caasimada aanay Somaliland meeshana la baabiyay annaga ay reeyal meeshan markii hore annaga geelaygu xeradii geelayga ahayd waa ka saarina reer walba cidii bixi weyday traw ma baxaynana waxa weeyay waa loo jooga marka nin walbana reerkiisa qabto ama calan Soomaaliya qaado ama mid hadda doonto kii midoobay al-shayaadiin كتاج هذا كوتالا ماشى عالم كتاج يسوي عداد كبيرة هذا كوتالا كل يدني مكا محايدة صبرونا وما ملايين يلفتوا ذي دي مكا أي سومالند دي أمزيم وهذا كيساوا يقولون ما هذا عالم كلاسي توله أول ستيت بان طيب كلي يقولون وضدا أي مرين ربحان تاي مرين وايو فود ستيب يعني طلابة إنما كاسو قادنا بيجوا قادين waxa ka jooga beesha saylic baa ka jooga saylic oo geeridii nabiga aan ogeyn saylic muxuu qabtaa yumata saylic ciidu matala ma jirto saylic iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ee in xaamid kan isagana magarasa xisbiga cid ka soo baxay ciiday matala ma jirto samaronna bari horay tashatay awoodun bay yara laayiin iyo magarasa hub iyo dhaqaale iyo arrimahaas bay laayiin maahane meeshan iyagu bari horay ka goosteen marka qulubta yani qofka hadaan qalbigiisa hayn inaad xoog ku qabsataa wax faa'iido ay leedahay ma jirto qofka ibnaadinka in laga baqdo in la xishmeeyo qofku waxa uu aaminsan yahay oo ideology ahaan uu aaminsan yahay in qofku aaminsan yahay waxan baa wanaagsan qof laakiin aad tira wax baan ku qasbay hadad ma ku qasabto waxan wax soconaya ma qofka ibnaadinka sharafta iyo waxan qofku ku qanacsan yahay iyo yuhuunta iyo is-aaminaada iyo waxan aaminsan yahay ayaa ka wanaagsan inaad tiraahdo qasab baan ku qabsanaya meeshaas waa aqli magarasay Stalin weyn madaxweynaha hore Ruushka aqligiisa iyo aqligii Hitler weyn qasab baan ku qabsanaya by force by power baan ku qabsanaya yasida dhulbaantay sida carruurta loo dhaqmay aad iska tiraahdo ay dhulbaantow soo noqda oo nacnaa yiraahdo soo noqda Cabdishaaq waa lagu baahan yahay abti soo noqda sida carruurta loo hadlay dadkan ma tashan karaan macnaha dadkan ma aaminsan dadkan ma way tashadeen way naga tageen maamul bay samaysanayaan dadkan markii hore qasab lagu ma hayn iyaga lascaan Somaliland geeyay de nimankii way tageen intan joogtaana ha raacdaan tolkooda ha raacaan macna ma kala day imka Somaliland tiraado niyow in ay koorow laga cuntaan ma magarasay iyo xoolaha meeshan ku cuntaan annaga nagama godo tolkiin raaca meeshan magarasay dadka intii majority ba xagga tagi wal marka wal lamba bixiya kuwana faratoon 90 baa tahay ayro dadkaaga ma garanayay ha ku aastaanay 90 baa tahay cimri kuma dhimanay
oroo tusbax qaado laascaanood iyo meeshaad ka timid bay originally meeshaad ka timid asal ahaan oroo tag ku dhima meeshaas laanu ku asmeynay tulkaaga meesha joogay kuwii ku buddigay ayaa joogay oroo meeshan hungurigan xun iska daayo ma hal lamba bixiyo wax fiican la siiyo saasa qalqaati shan qof baa meesha joogay indho waxa la berberaba ku dhashay baa isagu de meesha uu ku dhex jiray baa ku soo dhex koray baa dadka isagu baa meel uu tagaba garamay laakiin isagu de meelaha washmaan laga dhigay washmaan geerirka furfuraha laga dhigay baarlamaanka ay waxaas haduu doonay xubin sharafeed ahaan ha ugu jiray laakiin faratoon iyo in cali korra iyo nimankan xataa backgroundkooda markaad eegto niman Soomaaliland markii hore ba aaminsan ma ahayn wallahi qaar baa lagu leeyahay qaar baa meel iska dhiibay qaar baa meel ka orday meeshan dan bay u joogaan dan waxaan ahayn uma joogaan wala ogi taas marka waxa ka wanaagsan taas qofka runta ku sheegay kule warana uu Soomaaliland ma nihiin anagu maamulkaas oo ama cidaasaan Soomaaliland dhexda hortagina kaasa ka wanaagsan qofka marka soo hadlay inaad beentaas inaad qofka macaarada ma runta ku sheegay qofkaas in cali koran lacagta ka cunayay meeshan ku fadhiyo kule wasiir baan isagoo reerkiisa la caynayo habeen hore meeshii reerkiisa lagu maagay buu dhex fadhiyaa ugu dhex qoslayay marka he's a crazy man ma qofkan ma crazy ba maama baa wuxuu leeyahay hal ana majnuun maaniga waalan am yuqanni ala mas'alan bal geesiya waxaan ku soo gabagabeeyay barnaamijkan kaga baxaya yow faratoon iyo nimanka jooga waxaan leeyahay tulki raaca ceeb bay isku tahay annagu qof kondhabo uma baahnin kondhabnimo ma garanaysaa haddaan cid ku qaadayno kuwii hore tulka waayay baa ma garanaysaa ka buuxa meesha kondhab loo baahnay cilmi barakale fantashiru fil ardi meesha ku kala taga badlay barnaamijkeedaas ku soo fmeeriye way kullay Cabdirasaaq beelahan beesha saldanada Soomaaliland cid gale wuxuu ka xusay dhowr nin buu ka xusay inay halganka ay kula jiraan Jaacshaweel iyo xusay marka haduu Jaacshaweel xusay anaga waa noo dhantahay gudoomiyu ma garanaysaa dawladii u hadashay ama cidii dixiniya halkaas soo dhigtay runta sheegtay tiri annagu macnaha wuxuu baan u hadlaynaa xaqan u hadlaynaa anagu yaani SSC waxaan ku taageersanaa maadaama la dulmiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis qudsiya wuxuu ku yiri ilaahay ya cibaadi inni haramtum dhulma fala tadalamu adoomadaydiyo dulmiga xaraam baan ka dhigay as dulmina حديث قدسي waxa la xadiis yarwi annabi sallallahu alayhi wasallam rabbi xadiiska nabigu rabbiga ka warinaya laha marka anu waxaan ugu hadliyay laascaanood deesada qolada warsangalay xanaaqada warsangalay waxa xanaaqsan waxay leeyihiin ba anaga cabsaaq baan naga tagay anaga waan quursaday nimanka horta warsangalay laftooda saldanad bay ahaayeen hal qof laga xusin baa leeyay sal sheegayo laakiin cabsaaq de kulli nimankaasi de waxaan malaynayaa iyaga de dhulbahantu ma laga soo qaaday iyaga laftooda marka nimankii warsangalay xanaaqsan waxay leeyihiin lama xusin saas uu nagu sameeyay xanaaqsan marka Cabdusa العشرات كلا صوت دوبه وسجلي هرت بالماشى بوق بالماشي دي كده جنبه لما كانوا يسوي مهل أنا واجب لا شكر على الواجب قفك هذا الظلم كان ليه تطلع اللي بعطينا يوم مساكين ولا الله يوم وهالله تاس الجنة نقولها سنة ظلم يقول هو إيه وضع شيء غير محلي شيء قال الله يقول ما لا أمر الحين والظلم يقول ظلم قالوا ولا قال خير بالقوله يعني لا هي بعد المدرسة هي خير يدرج لك غير هذه لكن هبل لا كسو مانيه هبل ku raado hebel baa sawir hal jiray loo baahan wala naxafu loo matalayn mid waxa aantiisa ka baqan meeno xaq baan u hadlaynay intaas oo ma garanaysaa la shukr al waajib qofku markuu xaq ka hadlayo waa xaq siisa u sheega waxa laga sheegay iyo cid taageerisay cid ma garanaysaa oranaysa qof wanaagsan ma waa waajibayd kullu waajibku waa gudanay gudoomiye tawakkal baan ku leenahay halka hawsha ka sii wado hawshaada wado dulmiga iyo waxaasna waxa damba ha ku darsan baa ku la barnaamijka intaas ku saafmeeraya idinkuna waa maasantiisa ay dhigeysanayeen وصح وواجب حقه عبد الفتاح صح اساس وين قفكم ما ظلمي marka dulmi ka hadlaysa dad la dulmiyay dadari ilaahay wada hadlaysa imgarasa cidna waxa kaga doonimaysid cid risq kaga raadsanmaysid qof la dulmiyo walaalka al muslim akhul muslim dadka Soomaaliyeed oo walaal weyn muslimku qofka kale muslimka waa walaalkii Soomaaliga muslimku ka buniyaan imgarasa waa ka buniyaan waa si dhismo kale
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والزير إنه صلى الله عليه وسلم marka dadka islaamka oo dhan baa magaranayay hal dhismo oo qura ah marka hadii de walaalka dhawaato ku dhacdo oo la dulmiyo waa inaad hadli kartaa inaad qabiil iyo reer kan baas ku reernahay iyo kuwan magaranayay anigu garab siinayaayo gariga gadarraba reerkaas la jira waxa soo soconay ma wax ilaahay ka aqbalayna ma ay bariba lagu weydiinay ya ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay kulli nafsi wadmanaysa bariba wadmanaysa kulli nafsi daa'iqatul mawt كل نفس دائقة الموت وإنما توفون أجوركم ليوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز مركز الليبيان تاوها شو إلهينا النار تكاقف وقيو حق الشك برامج كنت أسأل كساف ميريا إن شاء الله كان يقصوا عن دونتان كل التلوين بدن بحيي والسلام